أيام بأيام في آخر ثبان من آن لهان دفتر لغيلا وأيام بأيام بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت waxaanu ku sugannahay madaarka caasimadda Hargeysa Cigaal International Airport kaasoo imka laga soo dejinayo Allah u naxariistee Abiib Diiriye Nuur oo ku geeriyooday waddanka Jarmalka Abiib Diiriye Nuur mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka soo qayb gashay aaskiisa oo ay ka mid yihiin golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada taliyaha guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiil kale imka laga soo dejinaya meydkiisa diyaaradan oo si toos ah loo geyn doono xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa halkaas oo lagu aasi doono inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mas'uuliyiinta soo dhaweynta aaska iyo ka qayb galaya waxa kamid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta mas'uuliyiinta xisbiga wadani kuwada ugu sareeya الثمان يوم المؤذكان وأروري الثمان يوم المؤذكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرستي أبيب ديري نور وكمدها هاليدي يمسؤولين تقرن كسومالان سومري هالجنكي دبودسكي يطابقات كسومالان دور مهمة كسوقاتي أي أسقرن لوجو سمي مقالة هرجيسة ميت كمرحوم كملكي لقسو دشيء مدارك عقال انترناشونال ايربورت مقالة هرجيسة وحكى سوق قبل مدحونا جمهورية الصوماليلان golaha wasiirada madax dhaqameed aqooyahan mas'uuliyiinta iyo madaxda hay'adaha dawladda barnaamijkan oo aanu ka diyaarinay aaskii marxuumka ayaa waxa uu dhacay sidan ay ku soo dhawaada min hali ahli an-nar allahumma arzuqna tilawata kitabika al-karim ala al-wajhi الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل نفس ذائقة الموت أبيب دليل هاي ونحرسته وحين مثل ما كورينا الله ونحرسته
innagana ilaahay naga daba naxariisto abiib diiriye intaa lagu sheegay qoladii sanadkaa iskuulka la wada qoray baanu ahayn inta badan noloshada waa isaag joognay waanu wada shaqaynaynay intaa dadku kaga warrameen iyo in ka badanoo wanaagaba uu lahaa qodob qurun baan ku daraya ninkaa 40 iyo dhowr sannadood ama 50 dhow siyaasadda ku jiray waxaan odhan karaa ama dembiga raaci maayo ninka ugu godobaya buu hadda siyaasiyan أنا عاون إنه حبي يسكو هيسن فكرت بس قبسان بيقول قصرين بيجري وحولها هذا بعد بشاوية آدي أبوله سيد الشاقي تاريخ سوال قوري دونا يعني إلهم بلغيه لكنا أنت أسياس كتير وأنت وزيرها وأسلم تجسك تفكر عن كبحين وأنقرأ لحى كبحين وحكياش أنت بدون كتير وعذر بس كهري ماده حضنا واحد بيقولها ما دار عاوقف أي عرف حبي سهيان أما قدرك الشاقي المجري وأنا بعد هاي السيو آدي وناكس marka wanaagiisa iyo wuxuu soo qabtay waa la qori doonaa hadii la ilaahay ilaahay dambigiisa ha dhaafo jannada ha ka waraabiyo caruurtiisii iyo reeraha badan uu ka tagayna ilaahay samiriye bana ka siiyo qarankana waa ka tacsiinay samiriye bana naga siiyo intii goorsan Allah naxariisto inagana Allah naga daba naxariisto midna waa dardaaran malaha daadiis xaq way ka wada horeeyaan wax yar ba ka dambeeyay waxa leeyahay baa looga qowrada lagu dambeynaya qowrada waliba siyaasadda iyo aad si tuno بلاد هذا سكوترو كنا لو تجي يا ذاك دمسته إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحس عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي قبرك هونور نحن سنا الله كورابيو أبيب ديريان نور شخص بلادن أو مدر رئيس ومالان ودن كبحيوي تاريخ دير كلها تهلجن تو أمدات تو دولدات تو دبوديس تصاحبتنمو مد والبا أبيب ديرينور نلا أيوها أدون كان عدكو وارسا مجتو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيان نولان لها هدي عدلة عليها نولانيسو قفلا نشاء الله يبا مالنبو إنجت تجيا إلهي قبرك هون نور إهل كيسي أصحاب تيسي وبد كيسي وبد كودي دمان ومد الرئيس ومالان ودمو حنولان هاي سبيل إيمان إنا لله وإنا إليه راجعون حباشي بان جوجنا الله نحرستي أبيب ديريه سلادين تمدح dhaqameedka iyo dad fara badan ayaa ka soo qayb galay xukuumadda golaha wasiirada iyo marka waxaan doonayaa inaan ku bilaabo madaxda dhaqanka Suldaan Xasan ayaa halkan aan doonayaa ku bilaabo si uu fariinta tacsida u diro bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu waa xaq maanta Soomaaliland iyo dawlad deegaanka dadkii ku dhaqnaa iyo inta ka agdhowba iyo gobolladii Soomaaliland oo dhan waxa maanta halkan aan ku aasaynaa ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo abiib diiriye nuur wacay seemaal oo ka mid ah halgabayaashii dalkan kaalin weyn ku lahaa haddii halgankii waddanka lagu soo xoreeyay ahayd iyo halgankii dibudhiskaba ilaa yoomana haadana oo ku godgalayna wanaag uu raadinayay iyo dhismaha dalkan door muhiima ka soo qaatay ilaahay waxaan uga baryaynaa anigoo yacni maadaama odaygiisiina ahaa marxuumka walaalo ilaahayna aanu ahayn isjeclayn sidii inoo jeclaa ee aan u jeclayn in ilaahay u jeclaadaan ilahay uga baryaynaa oo ilaahay ku soo dhoweeyo daaru jannatulfirdowsa alaclaa maanta abiib diiriye nuur taariikhdiisa waa laga warramaya rag badan oo marxalado badan soo wada marayba ka hadlaya laakiinse anigu maanta oday ahaan iyo dhammaan odayaasheedaa ka taagan waxaanu insha allahu ilaahay uga baryaynaa ergaanu nahay ilaahow beerbeeraha jannada ka mida ilaahow ku casuum ilaahow naxariista janno ka waraabi ilaahow naxariista janno ka waraabi ilaahow addoon wanaagsan buu ahaa oo khayr qaba oo dad jecel oo dal jecel oo samafalo ah oo ummaddoo dhan isku haya ilaahay oo adigu yacnii miisaankii xasanada ku saar wixii adduunka u ka qabtay dembigiisina allah yoo dhaaf jamaacada ku aasan iyo ummadda muslimiinta allah yoo wada naxariiso intii dhimatay anagana nooga daba naxariiso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt wayna ku wada xukuumanahay in qof walba maalin sida loogu soo ururo waxa muhiimada in qofku wuxuu sii geysto oo aakhira uga sii horeeya abiib إلهي نحرستي جنها كورابيو إلهي قبرك هو واسعيو إلهي حقيو واد أركتاه وصدقت دوي أنت أمت هل كنت تاجن
jinaasadiisa ka soo qayb gashay ilaahay baryada ay baryayaan subxaanahu watacaala iyo ha u rumeeyo ilaahay jannadii ha ka waraabiyo wuxuu ahaa halgamaa sidaa suldaan xasan sheegay hore iyo dibbana wuu u ahaa samatalis buu ahaa taariikh baa inaga baxday xogogaal baa inaga baxay nin weyn baa inaga baxay waana la wada baxayaa cidima joogayso subxaanahu watacaala ilaahay ha u naxariisto ummaddii iyo durriyaddii uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ha siiyo iyo dhammaantiinba iyo ummadda reer somalilan iyo halgankii ciddii uu la soo halgami jiray ilaahay samir iimaan saadiqa ha ka siiyo innakana jannada haynagu kulmiye isagaa weyn oo waaxide wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta waxaynu tacsidiisa joognaa una ducaynaynaa una makhraati kacaynaa walaalkeen abiib diirye nuur halgamaa weyn oday qaran nin kalgacal badan anugu waxaan xusayaa abiib maalintii aan bartay 1984 gaashaamo maalin rabadaana inaan iyana dhimatay allah u naxariisto aad u jeclaayo safiya xasan muraasal la odhan jiray gurigeeda ayay ku afurayeen waxaa wada fadhiyey ismaaciil xaaji cabdinin laydhaa iyo cabdi maydhane ragga intaan hubeeye madaxdiin waa maalintii bidhaantiisa igu horraysay waxaa cajaa'ib ah abiib inaan rabadaan bartay rabadaanna u dhintay ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay jannatu firdowsa ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay marti la jeceliya ka dhigo ehelkii iyo qaraabadii ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo gaar ahaan waxaannu tacsideynaa gobolka gabiile waxaannu tacsideynaa reer nuur wacays waxaan leenahay dhammaantiinba ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo qaranka somalilan buu ka baxay maalintiisii buu dhintay qof wanaagsan buu ahaa qof riximo oo dadka xidhiidhiya buu ahaa ehli cibaaduu ahaa wuxuu ahaa qof dadka xumaanta neceb oo wanaagga jecel ilaahay waxaannu ka baryaynaa qof kastoo bini aadan siyaad buu leeyahay siyaadkiisii allah ka dhaafo xasanaadkiisiina ilaahay ha u laban laabo ilaahay jannatul firdowsa ha ku macsuumo innagana markaynu maciisa nahay haynooga daba naxariisto waalidiinteennii dhammaanteed allah u naxariisto samir iyo imaanna eheladii iyo qaraabadii gaar ahaan xaaskii iyo carruurtiisa allah ka siiyo meeshuu ka baxayna beddel khayr qaba allah u soo geliyo وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت waxaan joognaa waqtigii ay noqotay abiib diiriye nuur saacadiisii allah u naxariisto abiib diiriye taariikhdiisa taariikhda soo koobi kara maaha abiib diiriye wuxuu ahaa wasiirkii koowaad ee ku jiray dhammaan xukuumadii Soomaaliya soo maray marka laga reebo xukuumadda maanta jirta waxaan u tacsiyanaynaa qoyskiisii ehelkiisii asxaabtiisii dhammaan qaranka Soomaaliland ilaahay samiriima wallah ka siiyo isagana jannadii naxariis janno allah ka waraabiyo ilaahay martiishil jecel ka dhigo taariikhda abiib diiriye ma ha toon soo koobi karno iyadoo dheer oo abaan soo saar doona insha Allah waxaan leeyahay allah naxariisto inaga samiriima allah naga siiyo dhammaan qaranka Soomaaliland aan aaskii abiib diiriye nuur oo ahaa halgamaa ka soo qayb qaatay xoreyntii wadanka iyo dibudhiskii dalkaba ka soo qayb qaatay wuxuu ahaa shakhsi ku suntan taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga tacsanaynaa qoyskiisii waxaan uga tacsanaynaa gobolkii waxaan uga tacsanaynaa ummadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan iyo waxaan uga dhammaanba inta af Soomaaliya ka hadasho dhammaan tacsanaynaa wuxuu ahaa nin qaran ehel janno ahaa waad arkaysaa waxa ka markacay inta ka soo qayb gashay maanta aaskiisa ka markacaysa taariikhdiisa waa la qori doonaa buugaag baa laga qori doonaa halkan kuma soo koobi karno إلهي جنة الفردوس على هجيو. إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت وحن جوجنا هل كان أن جوجنا وحباله بقي مقالة هرجيسة أسكي أبيب ديريا نور بان جوجنا الله ونحرسته كل نفس ذائقة الموت والله وظلمان يعني والبا نولا أبو أكيد أنت إنك سدا ما أنت يسقى الله عسى إرجع أنت عليك على نصيب هذا أدبو نصيب هذه inta ka dambaysana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inay intaa ka fiicnaato waxaanu leenahay ehelkiisii ubadkiisii Soomaaliland dhammaan asxaabtiisa samiriya iimaan qaranka iyo ummadaba ilaahay samiriya iimaan ka siiyo isagana naxariis balaaran allah u naxariisto qabriga allah u nuuro innagana subxaanahu wa ta'aala allah inooga daba naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaynu joognaa geeridii mujaahidkii weynaa wasiirkii abiib tibacad abiib diiriye nuur
oo ahaa tiirdhaxaadkii halganka qaranka jamhuuriyadda somalilan lagu xoreeyey taariikh weyn ku lahaa xilal badan oo kala dambeeyeyna soo qabtay wasiirnimo badan soo qabtay nin mujaahida oo dalka taariikh kula buu ahaa maanta waxaynu ku aasaynaa xabaalaha biqiic qof walba halkaas hawran oo la geynayaa maanta waxaynu erge ilaahay u nahay in abiib ilaahay naxariistii janno inuu ilaahay ka waraabiyo inuu su-aasha ilaahay u dhib yareeyo sakaraadkii dhaafiye inuu ilaahay qabriga beeraha jannada beer ka mida jannatal firdowsa calaa inuu ilaahay uga dhigo innagana inuu ergada ilaahay inaga aqbalo inuu qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ehelkiisii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ummadda islaamkaaba inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wuxuu ahaa nin taariikhda ku suntan halganka wuxuu ahaa nin qiimo badan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo jamiceenana jamicii jannada ku kulmo allaha ka yeelo raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaynu joognaa xabaalihii baqiic baynu joognaa waxaanaynu aaskiisii joognaa abiib diiriye nuur oo ahaa mujaahidiintii snm ee ugu horraysay ee aad u soo halgantay halgankana ka soo qayb gashay ilaa dib u xorayntii ilaa iyo maanta iyo ilaa dibudhiska mujaahidkaa allah u naxariistay ilaahay jannadii ha geeyo mujaahidku wuxuu ahaa nin ku suntan qaranka somalilan waxaanu ka taxsiyeynaynaa carruurtiisii waxaanu ka taxsiyeynaynaa xaasaskiisii oo dhan waxaanu ka taxsiyeynaynaa saaxiibbadii waxaanu ka taxsiyeynaynaa dhammaan shacbi weynaha reer somalilan baanu ka taxsiyeynaynaa qaranka somalilan baanu ka taxsiyeynaynaa allaha weynee waaxidana waxaanu uga baryaynaa in ilaahay jannatu fardowsa ugu deeqo إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxaynu joognaa xabaalihii baqiic waxaynu halkan maanta ku aasaynaa marxuun abiib diiriye ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u dembi dhaafo ilaahay waxaan u baryaynaa inuu addoonkaa u waasiciyo qabriga oo uga dhigo guri ka mid ah guryaha jannada ayaan ilaahay uga baryaynaa waa nin taariikh badan ku lahaabuu ahaa dalkan oo aan la koobi karin waa nin ilaa halgankii ilaa dibudhiskii ilaa dowladihii mid walboo shaqo weyn uga soo qabtay qarankan ilaahay dhammaan ummadda reer somalilan iyo asxaabtiisii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo ubadkiisii iyo ooryihiisii dhammaan ilaahay samiriye iimaan ha ka siiyo saadiqa innagana ilaahay samiriye iimaan ha inaga siiyo dhammaanteen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo innagana waa midina sugaysa geeriduye maalinteeda ay noo timaadday ilaahay ha inooga daba naxariisto innaa lilaahi wa innaa raajicuun waxaynu xabaashiisii joognaa abiib diiriye nuur abiib timacad oo ahaa halgamaa xilal badan qaranka somalilan ka soo qabtay alla qabriga ha u nuuro sakaraadkii dhaaf iyo alle su-aasha ha u dhab yareeyo maalmo khayr u dhintay oo waa maalmihii 10kii rabadaana sakaraadkii dhaaf iyo alle su-aasha alla ha u dhab yareeyo ilaahay qabrigana ha u nuuro qarankii iyo qoyskii iyo qabiilkii iyo dhammaan dadkii garanayay iyo ehelkii qaraabada samiriye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وعن جونا جريدي أبيب ديري النور بان جونا وحو أها وحا كمر خاتك عيا أمدا تمد جريديسا وحو أها قيمو لها كواس انت أمدا موجسي ummaddaa muujisay qiimuhu lahaa dalka ku lahaa ilaahay waxaan ka codsanayna waan ka baryaynaa ergaan nahaye intaasoo ummadii ilaahay waxaan ugu weydiinayaa dembi dhaaf janna ilaahay u weydiinaynaa naxariis baan ilaahay u weydiinaynaa ummadda hadhaasoo dhammi waa wada ergo aamiin 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 baan le alla naxariis jannaha ka waarabiyo wuxuu galay maanta maalintii aakhire maalmaheediiba kow ah maalmihii ifkana wuu macasalaameeyey albaabada jannada kuwa ilaahay ka furo ha ka dhigo kuwa ilaahay u naxariista allah ka dhigo dadkii uu ka tagay awlaadiisii iyo ehelkiisii iyo ooriyihiisii iyo dhammaan Soomaaliland samir iimaan allah ka siiyo innaguna markaan dhibana allah inooga daba naxariiso faataha الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحريست مرحومك هليي بوها
haliyey naga baxay buu ahaa haliyey ka baxay jamhuuriyadda Soomaaliland buu ahaa oo u soo halgamay oo wax badan soo qabtay Allah u naxariisto jannadana Allah geey ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo mujaahid marxuum abiib wuxuu ahaa nin qiimo leh wuxuu ahaa nin ku dayasho muran ifkiina ilaahay maka waa ka qaaday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waa u ducaynaynaa alla maxaa halkaa aynu nin kaga tagnay haddaynu wax ku qaadanayno alla maxaynu nin kaga tagnay qiimo lahaa waxaad ugu tegaysaa marxuumku wuxuu ugu tegayaa halkaa 3 shay oo adag wuxuu ugu tegayaa meel cidhiidhi ah iyo meel cidlo ah iyo meel muxuu ahaay aan wehel madow ayuu ugu tegayaa saddexdaaba ilaahay ha ka nabadgeliyo ilaahay meel khayr laasiyo waxaasoo ahaa waxba tari maysee ilaahayow waafaji hadalka wuxuu ahaaye hore halkan uu kaga tegey wixii uu ahaaye hore uu ka tegey ilaahayow halkaa wuxuu ugu tegey ilaa marti la jecel yahay ka dhig naxariis jannaha siiyo ilaahay ergeennuna ilaahay ergada kuwii ka aqbalaha inaga yeelo waxaynu halkan uga tacsiyadeynaa ubadkii ehelkii asxaabtii iyo qaranka Soomaalilandba wuxuu ahaa tiir ka mid ah tiirarkii dalkan halgan hadday noqoto iyo dhisma hadday noqotoba ka soo shaqeeyey raxmaan raxiim runtii waxaan joognaa geeri baynu joognaa kulliba abiib diirya nuur xaqi baa helay nin walbana halkaas u tegayaa waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ducada u aqbalo uun ergada intaa leg baa isugu timid runtii maalmo adag baanu soo wada marnay halkan kaga sheekayn kari mayno laakiin abiib allah u naxariistaan leenahay ilaahayna xaqaha u waafajiyo su'aashana ha u fududeeyo intaasaan kaga baxaya marxuumka maanta aynu halkaa isugu nimid ee abiib diiriya allah u naxariisto wax kale odhan mayne xisaabta qabriga ee uu sheegayna allah ha u fududeeyo allah ha karansiiyo ilaahay baynu u baryaynaa ee ilaahay qabriga ha u nuuro oo xurfad jannadii ka mid ah ha uga yeelo allahumma salli calaa العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كيريدا أبيب أينون مثل كذا سفرها بدن له إلهي دعينا هكا أقبله إلهي دمبي سهدافو إلهي قبرك هو نورو إلهي سؤاشا هو فضيو إلهي وبدكيسي إهلديسي ددكو كتغينا سمير يمان الله كسيو دمان رئيس Soomaaliland والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي مرحوم أبيب ديريا نور الله ونحرست إلهي هوا فتشي كلمة حقها سؤال مركل سؤاليو اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت إلهي سبحانه وتعالى ساسا ويديننا إهل كيسي أوريهيسي يوبد كيسينا إلهي سمير يمان كسيو قود هان قرن Soomaaliland إلهي نقرن بوهاي سمير يمان كسيو أبيب ديري إلهي وحنا مرينا النور إلهي نجنا ذا كورابي جنا قولك سابقة إلهي كسو قولك سابقة إلهي كسو جنة فلوس الله كورد كوي فلوس الله كديو كوي فلوس الله كديو إهلكي يا قرابة أنت ساكن نحس إلهي وسمري من هذا قرن كيسبة إلهي وحنا برينا إنه جنة ذيك ورابي جنة ذي ساعة هل كذي بتيجي جاي لا جنة ذاك ورابي جنة فلوس الله كورابي إنا إلهي نقدر برينا إنه إلهي جنة فردوس أعلى كورابيو ولكن أبيب ديري النور مجاهد وعوها سيدا كقاضي ninkii sideedaad ee halgankii SNM talaabay maanta wuxuu dhintay bishii Ramadaan 10kii u dambeeyay cidqul min annar maanta la suwaalkii oo la soomay yahay ayaynu aasaynaa ilaahay ha u naxariisto inagana ha inooga dabar naxariisto kullu shay indahu bi ajal musamma inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaynu joognaa aaskii abiib diiriya nuur mujaahidkii weynaa إلهي نحرس واسعة سيو دنبي سيكي سوالد كي الله دافو وحقيقة كل تاسم بينو دسوق إساء وحكتا عسين يا جودهان ماركتي أهلكي يا فاملكي يا أصحابتي يا جودهان قركي Soomaaliland يوم دو كبحي إلهي نحرس واسعة سيو إرجعنا مدنا إلهي تبارك وتعالى هنجا أقبله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي هون حريست أبيب ديري النور
ilaahay qowlka saabitaha ku sugo qabriga ha u nuuro alba waasiciyo inankana samiriyo imaaninkii ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo carruurtiisii baa ka siiyo iyo qaranka somalilan ergadaa dhan ee isku timid ee somalilan cid walba lehna ilaahay ha ka aqbalo salaada allah ha u aqbalo ilaahay qabriga ha u nuuro ha u waasiciyo taasunbuu maanta u baahan yahay halgamaa weyn buu ahaa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo saasaan ilaahay u baryanaa ergaanu leeyo naga aqbal waqaala tacaala kullu nafsin daa'iqatu mowt wa kullu nafsan ajalan musamma nin waliba maalintiisuu dhimanayaa maanta waxay ahayd maalintii abiib diiriye nuur ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa ha ugu naxariisto oo qabriga ha u waasiciyo oo ha ku sugo qowl saabit qabriga su'aalaha qabriga allah ha waafajiyo maanta waxaynu joognaa halkan xabaali baqiic oo aynu ku aasayno mujaahid abiib diiriye nuur oo ahaa mujaahidkii sideedaad ee halganka tallaabay wuxuu qayb lixaadle ka soo qaatay in dib loo xoreeyo dalka mar labaad wuxuu ahaa raggii aasaaskii dhabada u taagay somalilan intii madaxweynehe dalka ka soo shaqeeyeyba uu la shaqeeyey abiib diiriye nin wuxuu ahaa qaranka tacab badan soo geliyey nin wuxuu ahaa weeyaan talo leh oo arrin leh oo deeq leh waxaan halkan uga tacsiinaya dhammaan ummadda reer somalilan waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto samiriya imaanaha inaga siiyo gaar ahaan qoyskiisiina ilaahay ha u naxariisto samiriya dhammaantii baa inaga siiyo asalaamu calaykum inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi tiiraanyalo uga dirayaa qoyskii uu mujaahid abiib timaad ka geeriyooday ilaahay idamkiisa waxaan rajaynayaa inuu macii nebiga ka yeelo aas qaran baa u dhacay jamaacadda ka soo qayb gashay baa caddaynaysa inuu marxuun xagga rabbi raalli ahaanshihiisa hela yahay waxaanan ka tacsiyaynayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday dhammaantood gaar ahaan gobolka gabiley iyo guud ahaan qaranka somalilan mujaahid qarankan dhiiggiisa iyo tacabkiisa iyo xooggiisaba soo horay buu ahaa ilaahay idamkiisana waxaan rajaynaynaa in ilaahay macii nebiga ka waraabiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta waxaynu ku sugannahay xabaalaha baqiic oo aynu ku aasayno mujaahidkii weynaa wasiir hore abiib diiriye nuur geeridu waa xaq maalinba qof bay tiisa noqonaysaa maanta waxay naga baxay oo maalmihii khayrka badnaa ee dabayaaqadii rabadaan geeriyooday abiib diiriye nuur dalka dibaddiisa ku geeriyooday maantana halkan la keenay meydkiisa aynu ku aasaynaa marxuumku runtii wuxuu ahaa oday weyn oo haldoorka jamhuuriyadda somalilan ka mid ah wuxuu door weyn runtii ku lahaa dibu xorayntii dalkan raggii tacabka badan iyo dhiigga badan runtii dadka ka baxay buu ahaa dowlad dhiskii iyo nabadayntiina door muuqda ayuu runtii ka lahaa nin dowlad yaqaana dowladihii kala duwanaa dhammaantood badankooga la soo shaqeeyey buu runtii ahaa nin qaran buu ahaa oo qarankan guud ahaan ka baxay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu marxuumka ilaahay jannatul firdaws al-a'la ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsi daa'iqatul mawt naf kastaa way dhandhaminaysaa geerida waa lagu kala horeynayaa uun maanta waxaynu u joognaa geerida walaalkeen abiib diiriye nuur oon ilaahay u baryayno inuu jannooyinkiisa jannatul aclaa u geeyo abiib wuxuu ahaa qof shakhsiyad wanaagsan duun wanaagsan dabeecad wanaagsan dadnimo wanaagsan ilaahay unbaa laga helaa qof israacsada intaasoo maxaa ahayday intaasoo oo tilmaamo qof kasta oo ay soo wada shaqeeyeen iyo qof kasta oo maxaa ahayday la soo shaqeeyey abiib wuu dareemayaa wuuna garanayaa dunta uu lahaa abiib wuxuu ahaa mujaahid gashaday waddankiisa iyo dhulkiisa iyo carradiisaba inay noqoto mid ammaanah oo taa maanta aynu ku maxaa ahayday nool nahay inakoo xora abiib wuxuu ahaa sidoo kale saraakiishii uga hortallowday eslam maxaa ahayday saraakiishii uga hortallowday aasaasayna ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaalida ee snm maalinkii la aasaasay ururka eslam iyo maanta oo ay dhashay somalilan intaasba wuxuu u taagnaa dhisidda iyo horumarinta iyo garab istaagga qaranka jamhuuriyadda somalilan qofka wanaagsan waxaa laga gartaa jinaasadiisa dadka ka soo qayb gala
abiib maanta sida aynu ognahay waxa jinaasadiisa ka soo qayb galay dad aad u badan oo culimaadiin cuqaal salaadiin mujaahidiin madaxweyne cid walba iskugu jirta taasina waxay ku tusaysaa qofka shakhsiyadiisa iyo sida ummaddu raalli uga tahay waxaan leeyahay annagu raalli baanu ka ahayn ummaddu raalli bay ka ahayd ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ilaahayna raalli ka noqdo inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun wallahi horta waa geeri aad u naxdin badan oo aad u wada taabatay dhammaan reer Soomaaliland oo dhan waxaan halkan uga tacsiidinayaa dhammaan reer Soomaaliland waxaan kaloo aad uga sii tacsiidinayaa family-giisii caruurtiisii Abiib Diiriye Nuur waxa kaloo aan halkan uga tacsiidinayaa xaaskiisa Farxiya dhammaan dadkii oo dhan baan uga tacsiidinayaa gaar ahaan waxaan aad uga sii tacsiidinayaa reer Soomaaliland mujaahidiintii SNM iyo dhammaan dadkii kale wada shaqeeyeen sida wasiiradoo kale dhammaantood waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaanteen Abiib Diiriye Nuur wuxuu ahaa shakhsi aad u fiican runtii anagu in badan baanu isnaqaanay halkanna aan isku naqaanay Londonna aan isku naqaanay Ingiriiska wada deganayn waa nin aad u qiimo badan runtii oo ixtiraam badan ayuu ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa inuu sakaraadkii uu dhaafiyay kitaabkiisana midigta uga dhiibo marti la jecel yahayna Allah ka yeelo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun naxariis janna Allah ka waraabiyo Abiib Diiriye Nuur oo runtii ahaa shakhsi aad iyo aad u duwan wanaagsan sida la sheegayna haddii halgankii noqoto iyo siyaasadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii shakhsi duntiisu mar walba aad u fiican tahay ayuu ahaa qaranka oo dhan buu ka baxay waxaynu tacsi tiiraayna u dirinaa dhammaan ubadkii awlaadii awowga u sii ahaa dhammaantood ooriyaha uu ka tagay dhammaantood waxaan leenahay samiriye baan saadiqa ilaahay naga wada siiyo iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan iyo dhammaan asxaabtii iyo dhiman bahda siyaasadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaba waxaan leenahay samiriye baan saadiqa ilaahay naga wada siiyo Abiib Diiriye Nuur waa naga wada baxay dhammaanteena aanu cafino inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsi tiiraanya looga direynaa mujaahidkii weynaa Abiib Diiriye Nuur oo ahaa mujaahidkii sideedaad ee tallaabay halgankii qarannimada Soomaaliland qayb weyn ka soo noqday afartii madaxweyne hore la soo shaqeeyay nin wanaagsan oo qaranka tacab iyo juhdiba gashaday kamid ahaa marka waxaan ka tacsiyeynaa tacsiiraanya leh qarankiisu ka baxay wuxuu gashaday maanta uga socnaa aaskiisa saa balaadhan looga soo qayb galay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu maanta halkan isugu nimi dhammaanteen walaalkeen Abiib Diiriye Nuur oo aynu jinaasadiisii maanta joognaa maanta tagay gurigiisii xaq ahaa ee la wada tagayay Abiib Diiriye waa laga warramay taariikhdiisii halkan lagu soo koobi kari mayno waxa weeyaan ducadii uun baynu ducaynaynaa inuu ilaahay godka inuu nuuro ilaahay su'aasha u fududeeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto xaaji Abiib Diiriye Nuur wuxuu ahaa shakhsi aad u qaaliya oo qarankan ka baxay waxaan tacsi tiiraanya loo dirayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ehelkii iyo asxaabtii iyo dhammaan dadka reer Soomaalilandba xaaji Abiib Diiriye Nuur waxaan ku xasuusanaa annagoo ah gudida wanaag farista iyo xumaan reebista Allah u naxariistay markuu ahaa wasiirka warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamij uu siiyay gudida wanaag farista oo raadiyo Hargeysa ka bixi jiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka waxa uu ku yiri waman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah marka Abiib wuxuu ahaa nin diin jecel dalkiisana jecel ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto kulli warfaafinta qolada iminka joogtay wasiirku uu ka yahayna waanu is aragnay iyaguna way u ballan qaadeen wanaag farista in barnaamijkii raadiyo Hargeysa ka bixi jiray uu soo noqdo laakiin barnaamijka waxa unugiisa iyo aasaaskiisa lahaa xaaji Abiib Diiriye Nuur Allah u naxariistay ilaahay subxaanahu wa ta'aala godka ha u nuuro qabrigiisana beeraha jannada kamida Allah uga dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'aala saasan ka baryeena assalaamu calaykum ilaahay ha u naxariisto mujaahidkeenii weynaa Abiib Diiriye Nuur oo siyaasi weyn oo qaranka Soomaaliland ka baxaya oo ilaahay tiisii runtii bishii barakaysnayd uu ka dhigay kulli dil waa lagu wada xukuman yahay ilaahay baynu u weydiinanaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo guud ahaan qaranka Soomaaliland iyo shacabkiisa guudeeyo dibadba ehelkii asxaabtii awlaadii dhammaantoodna ilaahay samir iyo iimaan jamiilaha ka siiyo Abiib Diiriye taariikhdiisa waa ta laga warramay wuxuu ahaa nin ilaahay waafajiyay marxaladihii kala duwanaa ee dadkan iyo dalkan ay soo mareen dhammaantoodba inuu door weyn oo shariif ku lahaa hadday tahay xoreyntii iyo halgankii dalkan lagu xoreeyay hadday tahay dhismihii dawladnimada iyo hubka dhigistii
hadday tahay dhidibowda utaaggii dowladnimada iyo hadday tahay horumarkii iyo hanaqaadkii jamhuuriyadda somalilan dhammaantoodba door weyn oo shariifa buu ku lahaa ilaahay intaaba ha ku abaal mariyo oo jannadii ha ka dhiga abaalkiisa innagana waxaynugu waajiba runtii inaynu ku dayanno oo ay noo noqoto taariikhda wanaagsan ee uu lahaa waxaynu kaga dayanno oo runtii aynu kaga dayanno intayna nool ilaahay dhammaantoodba ha u naxariisto mujaahidkana aad iyo aad baynu ugu ducaynaynaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxa aynu taagannahay oo aynu erge islaam u nahay aaskii qaran ee loo sameeyey abiib diiriye eges wasiir oday mujaahid ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda somalilanna ilaahay samiriye ibaana ka siiyo taariikhdiisa oo ballaadhan halkan laguma soo koobi karo wuxuu ahaa muxsin sadaqad badan hadal wanaagsan naxariis badan dadka jilicdasan la caawiya cibaado badan ayuu ahaa waxa ay ka marakacaysaa maanta inta ergada ah ee maanta kala soo qayb gashay aaskiisu in uu ahaa ehelo khayr oo aynu ilaahay uga rajaynayno inuu ilaahay ku casuumo jannooyinkiisa waaweyn jannatu firdaws al-aclaa wuxuu ahaa shakhsi ku suntan halgankii iyo taariikhda jamhuuriyadda somalilan dhismaheeda oo ka soo qayb qaatay dhismaheeda juhdi badanna soo geliyey horumarkeeda iyo inay taaba gasho oo ay cagaha isku taagto dhammaan waxaynu leenahay guda iyo dibadba qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka iyo dhammaan asxaabta isaga ku abtirsanaysay oo dhan ilaahay samiriye iimaan dhammaanteen baa inaga siiyo kulli nafsin daa'iqatil mawt ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo abiib diiriye nuur ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan uu ka baxay samiriye iimaan ka siiyo runtii dee sidaa laga wada sheegay madaxweynaha qaranka ugu horeeyo dadka ay soo wada shaqeeyeen in badan ay ku jiraan mujaahidku eges wasiir nin weyn ayuu ahaa oo qarankan wax soo qabtay dib u xoreyntii wax badan ka soo qabtay dib u dhiskii dalka wax badan ka soo qabtay horumarkii dalkana wax badan ka soo qabtay maantana ay tiisii noqotay ilaahay waxaan uga baryay naxariis janna ka waraabiyo dhammaan qaranka somalilan samiriye iibaan ka siiyo inaguna waa inuu ku cimri qaadano qarankeena si aynu u ilaalin lahayn iyo sidii aynu wadankeena uga shaqayn lahaynba isagana ilaahay naxariis janna ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullah waxaynu maanta aaskiisii joognaa mujaahid halgamaa abiib diiriye nuur waxa weeye uu halgan badan u soo galay oo naftiisa u soo horay qarankan jamhuuriyadda somalilan yegleelidii qarankan markii la yegleelayena iyo dibudhiskiina waxa weeyaan habeen keliya ka bixin waxaynu ka garanaynaa ergada ku tukatay ee ka soo qayb gashay abiib diiriye waxa weeye aad iyo aad baynu naxariista ilaahay u weydiinaynaa qur-aankaynu u akhriyaynaa waxa weeye waynu u ducaynaynaa inuu ilaahay jannatu firdawsa ka waraabiyo abiib diiriye halkan laguma soo koobi karo taariikhdiisa bugaag baa laga qori doonaa waxa weeye laakiin maanta waxaynu u baryaynaa naxariista ilaahay baynu u baryaynaa in ilaahay godka u nuuro in ilaahay waxuu jannadiisa firdawsa geeyo ruucay seemaal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaan qoyskii qaraabadii ehelka iyo qaranka uu ka baxay 1948kii ayuu ku dhashay magaalada Togwajaale abiib wuxuu ahaa nin firfircooni iyo kalsooni shakhsiyadeed leh wuxuu ahaa halgamaa weyn wuxuu ahaa ururiye bulsho wuxuu ahaa nin go'aan qaata xukuumaddii kacaanka siyaad barre ayuu abiib ka soo noqday saraakiishii wasaaradda xanaanada xooluhu ahaa gobollo badan buu ka soo shaqeeyey wuxuu ahaa sarkaalkii koowaad ee sifiliyana ee tallaabo ayuu ahaa wuxuu ahaa sarkaalkii taliskii jigjiga oo wakhti adag iyo xaalad adag iyadoo lagu jiro ayuu halkaa mas-uulka ah ummaddu ururin jiray bulshay buu ahaa wuxuu ahaa nin dib u dhis iyo abaabulka iyo wacyigelinta SLM door laxaadna ka soo qaatay abiib diiriye iminkaad isdilayseen halkan markaad ka wareegtaanna wada heshiinayseen wuxuu ahaa nin calool wanaag ku sifoobay oo ficil lahaa oo go'aan siyaasadeed oo adag iyo badheero siyaasadeed intaba lahaa waxa laaliyo wuxuu qarin jiray ma jirin ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dib u dhiskii qaranka Soomaaliland qayb laxaad buu ka soo qaatay 4 xukuumadood ayuu ka soo noqday wasiir ciidamadii 99 halgankii uu kala qayb qaatay halgankii SNM door weyn buu ku lahaa taariikhdiisa dib baynu ka soo qori doonaa
axmed xasan cawke iyo jidhif iyo nuux taani iyo raggaasoo dhan bay isku galaas ahaayeen marka waxaynu ka qiyaas qaadanaynaa inuu ahaa tiir adag oo maanta ka baxay somalilan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabay dhammaan qoyska ilmo abiib cabdiqani abiib cabdi abiib wuxuu ka tegey carruurtiisu iyo carruurtay dhaleen marka laisu geeyo 8 bay gaadhayaan barnaamijkaas ayaan intaas ku soo gebagabaynaa aanu ka diyaarinay aaska allahu naxariistay abiib diiriye nuur dhinaca sawir qaadistu waa cabdi cumar dhammaantii waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu